soos ku diirsadaye makiina taagdaran taageera weligiine makiina taagdarane taageera weligiine wax lagu furo oo lagu hadlo amaba war loogu hormariyo quraanka kariimka iyo wacdi ayaa ugu wanaagsan marka waxaan ku soo dhaweynaa insha Allah Sheikh Maxamed Sheikh Abdi شكرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العليم. مركا waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah Maxamed Axmed Yuusuf Maxamed Dooro akhyaarta sharafta leh maamul goboleedka ka soo qayb galay xildhibaanka jaalidaha ka dhisan dalka aan ku noolnahay UK gobolada ay maalan sida jaalida galmudug maamulka galbeedka dumarka sharafta leh walaalahan martida sharafta leh idil waxa ku soo dhaweynayna hadii Ilaahay raali ka noqdo aanu sheegayna wixnana soo gudboonaaday iyo wixnana soo kordhay howlaha meesha ka socdo waxa kamid ah burcadki asla ogeen maamul darradii xaq darrada sawaaxiliga wato dhulka haystay xoog ku qabsaday in muddadooda dhamaatay 27ka ay ku eg tahay dawladda Soomaaliya marka waxa uu sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegaynaa anaga qabiil lama dagaalsana sida dhowr jeer buu hadalnay waxaan uu sheegaynaa in aan loo jadiidin international community oo tagnay waa la og yahay way ka dhamaatay qaranka Soomaaliyeed dadkayuna isku dilinay burcadkayuna waxba u jadiidin waxa ognahay in baan ifaataadugu ay socoto wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. محمد أحمد يوسف آدي وماسيا محمد دورة أو سياسي دكان كجبوين كسو جد وآدي ومشغول سنة وأيضا دمبسيد لوهل لها عدالة جود أو ضد كدن كافسة أرنت أن عاو سجون نمت معها دعوة معها عيدا دعوة كأنها مجرت عيد أن دعوة كأنها مجرته أو الصومالي ذا بيله ذا كلا جد سنة ودن واسكو تبر marka la dhaha xagga tabarta marka cid aan dacwo ka nahay oo aad aan ka sheeganayno gaara ma jirto laakiin gaaladii waa loo kala dhuuman ogyahay waa loo kala faradhuuban yahay samargas marka arrimaha meesha ka socdo waa arrimo ku saabsan wax ay soo kordhiyeen ciidamadan shisheeye ma aha Soomaalida dhexdeeda waxay kala qaadeen dada waxay ku doodaan meeshan waa u soo dhimanay dagaal aan u soo galnay arrimahaas ku doodaan laakiin arrintii waa in la taxliiliyaa marka la taxliiliyo waxa soo baxay safeeri dagaalkii ay galeen dadka marka deegaanka Jubbooyinka rabay inay qabsadaan ma dagaalkaasi ku qabsadeen wadanka maya marka dagaalkoodii ma keeni lahayn wax result ah soo markiis dagaal oo lagu guuleystay oo wadan lagu qabsaday oo kadib anaga qabsanay la leeyahay ma aha arinta meesha soo kororto waa naqaana marka Afrikaana wadanka qabtay dadka soo duulay marka hadii u socdeen inay dad kale ay dulmiyaan hadii u socdeen dagaalka waa dagaal xaq darra Soomaa marka dagaalkii xaq darrada ahaa uu guuleysan waayay Afrikaana wadankii qabsaday tiina waxa si cadaatay in Afrikaanka hoostiisii ay rabaan inay dad ku sii dulmiyaan marka insha Allah arintaas ma dhacayso waa laga hortagayaa marka barnaamijka kuma saabsana barnaamij dad gaar ah aan ka dacwoonayno waa barnaamij ku saabsan in cadaaladda iyo Soomaalinimada iyo wada dhalashada iyo dadnimada la tixgeliyo iyo deegaanka dadka deegaanka ay ka tashadaan arrimahooda marka insha Allah waxaan ku soo dhaweynaa mudane Siraaji Cadow meeshaas cadaalad darra ka jirto tan ugu xun ka jirto
waxa cadaalad darro nagu hayo ma ahan dadka meesha jooga waxa cadaalad darro nagu hayo waxa waaye waa Ethiopia iyo Kenya oo loo bixiyay beesha lixaad dowladdeena waa dowlad dulman waaye gacanta la hayaa waddankeeda wuxuu u baahan yahay horta in la xoreeyo kismaayo jubbada hoose kelima dhibka jubbada hoose ha u darnaato jubbada hoose dadkeena masaakiinta ah ee deegaanka ku dhashay ama ka soo jeeday waa ku dulmanahay kasoo bilaabo from 50 up to now hal maalin madaxa kor uma aanan soo qaadan education ma haysano caafimaad ma haysano waxbarasho ma haysano macnaa infrastructure waddanka ka socda qayb kama qaadano haddaa samaysatan waa laga duduminaa meeshaaseeto dhibkeeda qabtaa laakiin annagana waxaan looga baahan yahay xoolahena inaan u hurno dhiiggeenna aan u hurno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynaa suldaan maxamed carab mahadcelin kadib waxaan halkan aan doonayaa inaan sheego shirkan meesha caawa la isugu yimid waxa uu yahay waxaan caawa meesha isugu nimid waxa weeye inaan beelaha deegaanka isugu yimaadeen ee jubbooyinka inaan aragti midaysan ka yeelano farta aanu ku fiiqno khaladka ka soconaya jubbooyinka hadda ka hore aan u sheegnay dadka dhan way wada og yihiin mandate-ka Axmed Madoobe wuxuu ku egyahay August 27 waxaan idiin sheegayaa jubbooyinka wax sharciyad ah oo habeenka caawa ah jira ma jiraan oo kaliya Axmed Madoobe iyo beeshiisa oo meesha qoriyo ku haysta mooye wax sharciyada oo meesha yaala ma jiraan sidaas waa inaad ogaataan waad ogtiin walaalayaal 2 sano ayaa lagu soo dhoodhoobay Addis Ababa 2 sano khilaaf horta marka hore dan yar dib idin celiyo khilaafkii jubbooyinka beelaha deegaanka ah 5 madaxweyne ayay kulli is caleema saaro beelul madaxweyne caleema saaratay beelahaas madaxweynayaasha ayuu kamid ahaa waxa soo dhaxgalay dawladdii Soomaaliyeed oo samaysay shir Addis Ababa waxa lagu qanciyay ninka kan inuu 2 sano sii hayo 6 bilood gudahoodna uu ku soo wareejiyo dekada iyo aeroboorka ciidamada meesha jooga oo beelaha oo dhanna la isku dhafo laga dhigo ciidan dawladeed arinta iyada ah wax ka suurta galay malaha halkiisa ayuu ka watay markii ka soo dhawaatay ayuu doonay 27 Agost soo dhawaatay ayuu doonay in loo kordhiyo oo samaysto baarlamaan asiga jeebkiisa ama beeshiisa inuu samaysto oo waxba ka jirin beelihii Soomaaliyeed ee deegaanka waxba aysan kaga jirin sida daraadeed markii uu baarlamaankii samaystay oo hal beelo qura ah iyo degmooyin aan waxba ka jirin waxa isha saaray oo arkay baarlamaankii federaalka Soomaaliya waxay oo ka wakiilka ahaa beelaha deegaanka ee jubbooyinka khalad ayay u arkeen waxay sameeyeen waa kala direen mooshin bay keeneen way kala direen wax sharciyada oo haysto ilaahay abuurtay ma jira baarlamaankaas arinta iyada waxa lagu taliyay in dib la soo arko loo wada fariisto qof walba xaqiisa oo qaato ayaa lagu tala galay laakiin wuu diiday sida daraadeed wuxuu samaystay dastuur beel kaliya ah ayuu samaystay waxa la yaab leh oo soo gaaraya dastuurka waxa kamid ah in madaxweynaha ay dooro karaan wixii asigu uu samaystay laakiin madaxweyne ku xigeenka isagu magacaabayo bal ma asiga loo shaqeeya ma company buu leeyahay ma deegaanba ma muxuu ahaa bal inta khaladka arrimaha noocaas ah isaga baa kaliya samaystay isaga doonaya in beeshiisa oo kaliya intuu dhax fariisto caana ay ku shubaan sida daraadeed waxaan idin sheegayaa beelaha deegaanka ah ee halkaan fadhiya wax sharciyada oo meesha ka jira ma jiraan waxaan ku baaqayaa inay isugu yimaadaan inta naga maqan inay isugu yimaadaan shirweyne jubbooyinka inay isugu yimaadaan ay deebid ma isha saaraan farta ay ku taagaan aayahooda ay ka tashadaan ayaa anigu sheegayaa cidna aysan sugin waxaan kale oo aad ugu faraxsanahay beelaha deegaanka ee meeshan jooga
inta aan ka hayn gruubka hadda aan sheegahay innagu gaal ma wadano gaal la dooni mayno inuu kursina saaro waxaan doonaynaa inaan annaga Soomaalinimadeena iyo xaq inaan wax ku raadino cid la dulmaa ma jiro dulanka ayaan diidanahay sidaa daraaddeed walaalayaal annagu gaal wax ku falimayno jaajara ku fulimayno shir baan isugu imaan doonaa haddii alla ka dhigo shirkaas oo aan diiradda saari doono mustaqbalka jubbooyinka iyo beelaha jubbooyinka waxa caaw halkan noo jooga marti sharaf xildhibaan daahir ami jeesow ayaa halkan noo jooga oo sharaf weyn oo caaw inagala soo qayb galo xafladda arrinta tan oo diiradda lagu saarayo dulumka ka jira jubbooyinka aad iyo aad aan u faraxsannahay mudane xildhibaan amiin daahir jeesow halka inoogu yimaado caawa isagoo ka wakiila baarlamaankii Soomaaliyeed إن شاء الله هذا نحن كسر دوينا قدوميها جالية قلمذك محمد عيسى أركان عاوز كوني سو دوينتا إيسي سقوتينتا اللي بنداهر أمي جسو وحنكون فرحسنا هاي كلن كان قالي جاي ونقلس وقيب قالي هدانا هاي بهوين ترير لندن إيه UK إنتبه سعادة الحلبان كوسو دو غوريغان كوسو دو ولاله وجوغودا كوسو دو فرتينتا أي كودي بيان كوسو دو حديديلا دي همبلية دي كو قبان كوسو دو هلوغان كو قبان وحا فرحت أن لسوكو بكرنو وضعه إنان عدكاغا مقلنو inaan baahida iyo ictimaadka iyo isku xirka iyo xiriirka iyo waxqabadka iyo gurmadka iyo hagaaga iyo horumarkaad hayso aan ku garab taagannahay inaan ku farayno culayska jira ee ka jira gudaha xal u helidiisa adoo codkayga ku hadlaya annagoo ku garab taagan annagoo doonayna inaan message cad aan dirno kuna salaysan culayska ka jira jubbada hoose iyo jubbooyinka oo idil sacaadatu xildhibaan ummadda halkan fadhida waxay doonaysaa inaad baarlamaanteerigii qaranka Soomaaliyeed codkayga aad gaarsiiso waad gaarsiin jirtay waad geyn jirtay waad u gudbin jirtay waana ku faraxsanaa jirnay furcadida aad codkaaga u isbeelin karayso u saarta miiska waxa naga go'aana inaan cidna la dulbin anaguna aan dulan yeelin waxa naga go'aana inaan wada qaadano wax kasta oo horumar ah oo hagaaga oo himila oo hambaliya waxa naga go'aana inaan ku biraysannahay codka aad naga gudbinayso insha Allah taala warkayga waxaan ku soo horinayaa walaalayaal gacmaha adinkuna isqabsada gudahana codkiinu ha noqdo cod aan dulan lahayn oo aan waxba in ku dulminayn laakiin xaqiina ku muujisanaysaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u yeeraa hadda insha Allah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Nimca Cali Xareed waxaan leeyahay hambalyo caawa casho sharafta isugu imaano walaalkay xildhibaanka qaaliga oo ka muuqda iimaanka qofka islaamka iimaanka waxa lagu gartaa oo kaashada muslimnimadiisa qofka xaq ka hadla oo qof iimaan buuxa leh waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay caawana shacabka ka hor fadhiyo macnaha waxay kugu imaadeen farxad ay caawa kugu soo dhaweynayaan waxay tahay sida aad maantay u istaagtay ama uga hadashay ama uga dhijisay xaqa oo qof walba aad jecleed meel walba inay gaarto israac ama si daacad loo maamulo waxaan ku leeyahay aad u mahadsantahay tan labaad waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda galmudug oo caawa sharaf weyn ayadana u inay meeshaan caawa ka muuqato gudoomiyaha maxamed ciise
iyo dhammaan marti sharafta aan laal usoo tiri karin oo caawa wada joogto hooyo iyo gabar iyo mudane iyo marwooyin waxaan idin leeyahay idinkana sidoo kaleeto waa inaan u istaagnaa waxqabadka meel walbana aan macnaha gaarsiinaa xooggeena kartideena maamulkeena haddaan xataa wax kale awoodin inaan aqoonteena iyo waxqabadkeena macnaha aan gaarsiinaa si aan ka warqabno dadkii baahnaa waxaan leeyahay aan isku tashanno aan isqabsanno aan israacno aan isku tanasulno aan mar meel walbana aan u istaagno waxqabad dhab ah oo annagana laga rabo inaan meel walba ama waqti walba aan wax qabsanno asalaamu calaykum waraxmatullah insha allah hadda waxaan ku soo dhaweynaa mudane maxamed cabdi ciise ummadatan dhammaanteed ummadda Soomaaliyeed waa dulman tahay ma ahin jubbada hoose kaliya ma ahin dhammaan bay dulman tahay gumaysi cusub aan galnay waa ogtihiin meel kasta waa la fadhiyaa laakiin hadda waxa u sii daran kan ximbaarsan ka Soomaaliga oo beebeega fuula oo raba inuu ku qabsado yaani ma garanaysaa kuwii hore noo haystay kii hore noo haysatay dal badan bay naga haysatay NFD bay haysatay Ethiopia waxay naga haysatay Soomaali galbeed ay haysatay niman cusub oo dhalinyaro ah soo baxay oo dib dambe inay dalka ugu qabsadaan annaga beesha walaalahayna ah oo jubbada hoose oo dadka la degta dadka ummadda faraha badan la degta oo walaalahayna ah waa ogtihiin 64 ilaa 77 wixii Soomaaliya uga baxay ama dad ka dhintay ama dunyo uga dhintay oo intaas aan u raadinaynay inay ka xuroobaan gumaysiga ee inay maanta ayagu marka gumaysi dambe geliyaan kama aan sugayn una sacbiyaan mar raba inaan aad ugu fogaado waxaan jeclaan lahaa inay shacbigu ay ka soo noqdaan ay wada arkaan oo la arko in yaani ay khaldan yihiin nimanka walaalahayna oo dhalinyarada ah oo raba in yaani ay ku xaliyaan maantay qabiil inay wax ku xaliyaan doonaya ma ahan qabiil xal ku gaari meysaan ayaan leeyahay walaalayaalow kan noqda arintaas dadka walaalaha oo masaakiinta ah wax la qabsada qurigu waa dhamaanaya beebeeguna waa tagayaa hadduu beebeegu tago nin qori haysta iyo nin qori haysano adduunku waa u jeedaa inay wada hadli karin marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo jubbada hoose jooga oo gacnaha ha isqabsado ma ahin iyowna raacin nin biri tagaya waxaan maqli jiray niman ku fureen iyowna ku radin war Soomaaliya war dadku waa isyaqaanaa dadku waa isla dhashay dadku waa isdhalay mana kala tagi doono hal lahjadahan ku hadalnaa adduunka dhan qabiil yar baanu nahay adeer waxba kala ma qaadayno marka waxaan jeclaan lahaa nin kasta oo madax noqdaaho inuu dadkiisa oo wax u reebo wax fiican oo ku reebo ee oona ku reebin wax yaani ma garanaysaa caruurtiisa biri lagu raadiyo iyo jifadu ka dhashayba marka dad waxaan arkay cabasho wada gabdho badan oo halkaan cabanaya dhul baan leenahay dad baan leenahay ku haya marka waa inay itusaan buuggii loo saxiixay inay dhulka leeyihiin abkowgood leeyahay awowgood leeyahay anugu aan ka shaqayn karin oo ka talin karin anoo ka imid meesha la yiraahdo kilinka shanaad ka imid anoo ka imid maxaa tiraa jigjiga iyo hagaas ka imid inaan Soomaalinimo ku xukumo aan maxaa wax idin baro aan beeraha idin falo aan maxaa tiraa waxbaad qaban weydan 25 sano waxa iska daba wareejinayseen marka been ana wadan ku dhashay ana gabar Jubbaland ana gabar Soomaaliya ana gabar oo jamaame ana u dhashay ana dhulka iskale been baa sheegaysa intee ka imaatay wada Ethiopia ka imaatay ka bax dhulka waa idul mise wax yaala ma jirto ana dhulka iskale waa dulmanahay ha ka bax dhulka ana ha ka baxo ma u baahnin ana dhulka iskale awowgeeya iskale abeeya iskale ila aad joogtid ma aha qaladaan ugu soo binaysa allah alla ma ka bax wadanka ka bax anigu aan qaldan tahay waad qaldan tahay shicib baa taa waa lagu xukumaa ana ku ilaalinay maya waad qaldan tahay ma dulmanid ana ku ilaalinaya ana la ii soo ka diray aniga maxaan ahay ciidamada ada ii keen mucaarid baa wadato waxa
waxaan waxba ahan adaa wadato dhulka soo gelisay maya mucaaradka tirada badan jooji anaa waa la isoo qaadiro lacag baan kugu qaataa waa ka baxaysaa wadanka muu baahnin kenyaati muu baahnin etoobiya muu baahnin waa inay ka baxaan wadanka adaa keentay ninkan dulmi baa ku keentay dulmi ee ka bixi wax aan noo haysiin male raacadi hataa ka bax adduun wax aa haysid male ka bixi waa ku ilaalinayaa waxaaga saad hantidaada iyo waxaaga u haysatid anaa ku ilaalinaya haddii kale shabaab iyo dad kale ku dhacaya fariiso wax aan ilaalinaysa ma jirto waa inaa ka baxdaa adaa keentay ninkan ka bixi iga bixi ninkan waana dhacdan waa dulanahay annagaa dhulka iska leh waa inaad ka saartaa dhulka soo adaa keentay adaa kaar ku keentay ma degna ninkan meesha ka bixi kaaraha aa ku wada iga bixi ma u baahnin ma fahante ka bixi qalad baa ku keentay ninkan iga saar maya ninkan iyo adiga anaa labadiina isku kiin ilaalinayo waana idin kala ilaalinaya waa isku kiin ilaalinaya Ethiopian yo ka bax wadanka kuma baahan adaa wada ninkaanayto adaa wado adaa keentay wadanka wixii ka dhacay kulli waa ogsoonahay ma fahante dulmi baa laga wadaa ma fahante maya waan isku kiin ilaalinaya waana idin kala ilaalinaya dhulkaaga wuu ku badbaadaya meeshaada iska joog adigu naga warsug war adigu maxaad suubinaysaa dadkan tartiib u cuno dhuxushaada dhoofso meeshaad ka dhuuman lahayd oo kale ku dhuumo naga jooji waxaan cadcadiyo dadkaada duubkan aniguna lacag baan qaataa si aan guryahayga u dhisto aamus maxaa dagaal iyo waxaas kaa galay maxaad la qaylisaa ha qaylin meeshaan waxa cadaaladda raad anigu waxaan u soo dhoofay inaan guryo dhisto in aan dadkaan nabadayn u dul joogo in aan ma ujeedaa waxaan ma aqaana wixii isdilaya hays dilaan wixii isdhacaya hays dhacaan iyagaa Soomaali isku ah adiguna meel waxa rabtid aduu ka filso laakiin qayladan jooji kaalay midkaan miyaan weli wax la siin soo kakanoo soo ordahay wixii dhammaa waa jiifinay waxa hadlaaya malahan kan waan weli aada waxba siin hawa jugsi sootaan ku yiri wixii dhaqaaqaya aamusi seexi sootaan ku yiri kan waa la xirayaa amarka lagu dalbanayaa waa kan tan waa indhacada wadankay leedahay laga sii jeesan mayso laakiin kuwa kale aan soo diraynaa ayada wasiirka dekada ku xigeenkiisaan ku magacaabay canshuurtaada iska qaado qabiilka iska daa waxaan Soomaali orod iyo qaylo iyo qabiil wuxuu raadi iyo waa inaa ka baxdaa ma doona inaa sii joogo dhibaatadaas waxba ku gaari mayso ilmahaaga ilaalso agoontaada ilaalso waxaad tiraahdaa dantaada garo canshuurtaada iska qaado mushaarkaaga iska qaado waxa rabto lugta mari waxaan hadhow dad baa imaanay waa laga qaadi doonaa adigoo ooman oo waxba helin waada ku haaya meesha qaadi kara ma jirto dulmi baa ku joogta iyo qayaano soo kaaraan wuu ilaalinaya Ethiopian baa ku keenay Ethiopian iyo Kenyan baa ku keenay al-shabaab kan ka ilaalinaya dawladda Soomaaliyeed baan ka ilaalinaya oo wax qaadanayso ana u dhashay dhulka ka bax muku rabna muku doonayno waa inaan naga baxdaa xaq darraa ku socotaa dhiigeena cabtay guryaheena dumisay wadankeena badashay kuma baahnin waa inaan naga guurtaa muku baahnin qalad waan dulmanahay muslim hadaatid waa inaan wadankayga ka baxdaa waa inaan gurigayga ka baxdaa maxaa kugu dhacay nadaaf nagtaas dambe haddaad bari galab la timaadid alla ilaahay waana dad dirsan oo lacag dhiibin waaya salaamu calaykum arrintaas waa ka shalaynaysa joog mudane daahir amiin xuseen amiin jeesow ku soo dhawaaw mahad ilaah baa iska leh waxaan u mahad celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey kulankan aadka u quruxda badan waxaan si gaar ugu mahadinayaa gabdhihii igu qasbasiiyey si fiican aan u qaslay waaqiciga jira ayay ka hadleen intaa kadib odayaasha iyo waxgaradka ka soo qayb galay dhalinyarada ururka haweenka bahda saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan hubaa in xaqdarre weyn ay meeshaa ka jirto waxyaabaha baarlamaanka Soomaaliyeed uu ugu dhiidhiyay asagoo dhawaqiinii iyo shirar badan oo aad halkan ku qabateen intaba ka turjumayo waad la socotiin hadda baarlamaanka Soomaaliyeed arrintaas meel buu saaray qaraar dhabowna ka gaari waxaa hubaala idinkana inaad dadaasheen dadaalkiina ma yareen waxaana xasuustaa shir London lagu qabtay oo aad loogu qayliyay Soomaaliya oo dhan gilgili inaad halkan ku qabateen caawana waa kiyo kale aan filayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay siday u cabireen aragtidooda gabdhihii walaalaha ee ka soo jeeda jubbooyinka insha Allah cid isku ilaalin doonta ma jirto Soomaaliya Soomaali baa leh annaga baa xisaabtamayna annaga baa isku darmayna annaga baa waxayna saxan doona insha Allah waxaan rajaynayaa cid allaali cidii lagu tuhmayay in dadka ay isku ilaalinayso ee gacan saddexaad inay meeshaas ka bixi doonto waxaad la socotiin Soomaaliya 1960 markay xornimada qaadatay gobolada jubbooyinka waxay ka mid ahaayeen goboladii xornimada la qaatay waxaa la dhihi jiray Alta Jubba iyo Baas Jubba odayaal iga daaweyn oo aad taariikhdaas u haya ayaa jooga dad baa markii xornimada ay qaadanaysay xilligaas ee ay meesha la yiraahdo NFD ay goosteen dalalka hadda maanta gumaysta dad baa ka xoreeyay jubbooyinka maalinta waa la soo haweystay ma ahayn meel oo muxuu ahaay iska xornimo iska qaadatay dad baa dhiigooda ku daadanay dad baa maalintaas aad u maasanta dad baa maalinta ayada aabiyaalkooda ay u dagaalamayeen waxaan taariikhda ku hayaa dad badan inay qabri u galeen oo ay dad badan haween badan ay xabsiyo ku umaleen waan ogolnahay dadkii maalintaas isla dhimanay laakiin dad kale oo meel kale ka soo guulay ma ogolin maanta waxaan idin sheegayaa walaalayaal Soomaaliya sidaad la socotiinba dawladda hadda u dhisan waxaa lagu dhisay wax la yiraahdo power sharing qabiil taad macnaheedu waxa way waxa cadaalad darradii iyo wixii iyo iska dabalaabkii marka uu batay ilaa laga soo bilaabo shirkii carte waxa wax lagu qaybsanay qaab qabiileed Soomaaliya xilligan hadda la joogo iyo markii ka horeysay ku meel gaarka aheedba waxa wax lagu qaybiyay 5 beelood oo Soomaaliya 5 beelood oo Soomaaliya beel aan deganeen maanta jubbooyinka ma la xaqiiq markaan ka hadlayno waa la wada degan cid kaligood siin karaa cid kaligood talin karaa cid kaligood masiirka goboladaas dusha saaran karaa male waxaan leenahay aan wada tashano aan wada fadhiisano intii isla noolaan jirtay waa isla noolaanaysaa midna ogaada diriska kaaga ah oo ilaahay qofku diriska la dhigaayo adiga Joyce uma lihid inaad dooratid sida shaatiga adiga aad jeceshahay inaad ku soo labisato oo aad dukaan inta tagto shaatiga adiga aad jeceshahay aad u gadanaysid diriska looma gadan karo dadka kan diris waaye ilaah baa isku qasbay cidii doonaysa inay kala kormariso oo grade u kala yeeshay aqliga ayaa geelkaaga tutuntan geel aan aqaanay waxaan leeyahay waxa weeye oo aan beesha caalamkana u sheegnay haddana aan u sheegayo anigoo xildhibaanka dadka deegaankaas ka soo jeeda matala in ummadda Soomaaliyeed faragelinta laga daayo faragelintu qofna inuu kala giishaata bir etasho cid laga yeelaayo male shaatiga birta waa wada talanaynaa ama waa ka shaatil aanayna wax ka dhaxeeyo male waxa hubaala dadka jubbooyinka degan in la doonayo in la kala qoqobo in la doonayo in grade loo kala sameeyo
kala sarreyn la sameeyo laguna naaxo markaa xoolahoodii iyo canshuurtoodii iyo dhulkoodii iyo dhuxushoodii iyo wax walba iyo tegadahoodii iyo wax walba in lagu naaxo cidna kama yeelayno ishaayna qori ma mudaayo waa aan jiifno waa jirtaa dad nabad jecel inay yihiin dadka jubbooyinka laa shakila waan ognahay siiba dadka koonfurta ka soo jeeda ee aan ka imaan NFD na aan ka imaan Ethiopia aan ka imaadan ee dadkii deegaanka ah dad nabad jecel diris jecel walaal jecel reer waama la isku yiraahdo oo Soomaalinimadana jecel waay hadda ishaayna qore ma mudo ma sii jeesanayno ma ogolan in noogula taliyo annaga inaan ka talinaan diyaar u nahay inaan wada talinaan diyaar u nahay laakiin aan ku taliyo cidna ka yeelimayn waxaad la socotiin in 75 xildhibaan oo la soo xulay hal beel bas ay 51 xildhibaan qaadatay subxaanallah cadaalad xumo intaas la eg adduunyadana ma maqlayso gaaladana arkaysi xataa cadaalad xumada ma ogolo annagana muslim ah oo caqiidadayna ayna tusaysay inaanan la takrifalin ma qaadanayno xaqiiqo waa sidaas walaalaha waxa sameeyay waxaan leenahay gaal nagu dhax jirima Kenyaati nagu dhax jirima Ethiopia nagu dhax jirima shabaabka adarkaysaduna shuduudaha waa ka baxaya meesha waxa isku soo heraaya waa dadka deegaanka yaan colaad iyo dhibaato la kala gelin yaan dhibaato la abuurin yaanan ummadda la xaqirin yaan cayb iyo isdil ma doonayno xilligan hadda maanta la joogo oo qarnigii 21aad aan madaxa gelin dooni mayno in dadkayna ay dib hab qabiil u soo dilaan waxa aan diidanahay waa taa inay nala gartaan waa waxa aan rabno walaalayaal waxaan diyaar u ahay wixii fariin ah oo aad dhiibtaan iyo wixii su'aal ah oo aad i weydiisaan inaan idinka jawaabo laakiin inta aan ogahay oo aan idin sheegayo waxa weeye mabda aad u adag oo dhib badan oo federal liiraahda la qaatay federaalki dad baa u fahmay in qaab qabiil ay ku hirgeliyaan sax ma aha federaalka aan qaadanayno waa federaal ummadda Soomaaliyeed ay wax isla leedahay ummadda Soomaaliyeed ay wax isla difaacanayso ummadda Soomaaliyeed ay xaqaani wax ku qaybsanayso dawladdii dhexe ee aad la socoteen ayaa dadkii Soomaaliyeed ay kaga dideen cadaalad xumo iyo wax kala tirsi dhibaatada laga dhaxlayna waan ognahay 25 sano oo dawlad la'aan ah waxa aan doonaynaa waxa weeye federaalka aan qaadanayna waa mid Soomaaliya oo dhan ay wax isla yeelanayso bal gobol shanta beelood oo Soomaaliya ay wada degan yihiin ninka 51 xildhibaan ka qaatay 75 xubnood cadaaladda ween xageen joognaa dadka yaa waay sidaa lagu samaynayo waa kii shalay aad lahayd wax isi ee dagaalka adkay kaga hortag xaqiiqatan waa ognahay anagu cidna ma jaa'ifaynayno laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed yaan la isku dilin dawladda federaalka diyaar uma aha in shacabka Soomaaliyeed saacadan qore ay isugu dhiibto cidii ku fikiraysana oo danaheeda ka aragtina cid ka yeelay malaha qof hurdaayo ayaa riyooda inta badan laakiin qof soo jeedo inta kaligii kursi ku fadhiistay riyoonayo maaya asmac ma ka yeelayno waxa aan rabnaa waxa weeye in shuruucda dalka loo wada hoggaansamo waxa aan rabnaa waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed boogahii kala gaarin la dhayo waxa aan rabnaa waxa weeye federaalka si cadaalad oo xaq ah in lagu dhaqan geliyo haddii la diido dawladdii muxuu ahaay militariga dad badan oo dadkii ka soo shaqeeyay ayaa dhihi jiray cirkamaad igu soo duminay markii aad wax la qabsatay haddii la diido cirkamaad la soo duminaya annaga diyaar uma nihin in la dhaco diyaar uma nihin in dhulkaayna boob lagu qaato diyaar uma nihin in la xaqiro waxa aan diidaynaa waxa weeye walaalnimadaan ogolnahay wadajirka Soomaaliya aan ogolnahay laakiin nin walbaba inuu yiraahdo bugcad
aan ku gorgortamo ayaan Soomaaliya ka samaysanayaa taas waay waxaan diidayn federal in badan oo dadka reer koonfureedka ah way ka cagajiideen waxay uga cagajiidayeen inayna dhul lahayn maaha inay deegaankooda isku yar yahay maaha waxay rabeen isla jirka Soomaaliya la rabay waxa aan diidaynaa waxay ahayd oo aan dibdhac weyn aan u sameeynay waxa weey waxaan diidaynay in gobol loo kala gogo qaryad la kala noqdo bari la yiraahdo walaalaha Jubba iyo dawladda Kenya ee walaalaha anaya dagaalamay in la yiraahdo community chairman keena Abdi Cali Dhaxe amisom horta ayada ruuxeeda anwaac mukhtalifa ah nuucyo kala duwan way qolo waxay u joogtaa inay meesha lacag ku qaadato qolana waxay u joogtaa in ay dhul qabsato oo bad iyo biriba inay qabsato qolana waxay u joogtaa inay isku dirto Soomaalida qolana waxay u joogtaa Soomaali inay noolaato wax qabsato oo ay jirto ay garab taagantahay inii kala sheegay marka sida la aliyad waxaan leenahay aqliga ka guuray markay inta u soo garaariyeen afayna ay soo daba dhigeen la yiri inta u tagtid u saxiix Axmedow wuxuu sheego dhinaca kale ka fiiriyo maalinka maanta doolow baa la tagay reer doolow waxay yiraahdeen Axmed Madoobe iyo way diideen wuxuu watay ayagoo raba in Soomaali isku timaado wax badan baad ka maqasheen idaacadaha ninka la yiraahdo Hebel Kaliil ninka la yiraahdo gobernatooraha Gado oo ku baaqay in Soomaali isku timaado waad la socotaan maanta in la yiri waa lagu xirayaa isaga iyo kuwa badan oo kamid ah yaa dhahaya waa Itoobiya way oo maxay rabtaa Axmed Madoobe wax kale uma ahan laakiin waa nin wax lagu qabsan karo dantooda ay ku fushan karaan oo ay badda ku qabsan karaan oo birrada ay ku qabsan karaan oo Soomaaliya isaga hor keeni karo waad aragteen nimanka ay xuleen hadda ka hor oo saaxiibka ay leeyihiin markay la hadlayaan Itoobiya Kenya ayagoo farxsan oo waji furan oo dhinacyada eegaya oo walaalaheen leh markay Soomaali arkaan madaxweynaha Soomaaliya baarlamaanka qalka iskashadaan dadkaas way dadka la raba marka ninkaas oo kale lagu shaqaysan karaa da kuwa la xirxiraya garbahaarey lagu xirxiraya walaalahay weeye waa u damqanaynaa mana yeelayno waana isku imaanaynaa waxa la yiraahdaa dhulka iyo xaaqinka dhulka hara xaaqinku uu dhamaanaya Axmed Madoobe iyo wuxuu wato waa xaaqin way Kenya wadata way iska tagayaan midna waa naga xaaraansan yahay midka naga xaaraansan waxa weeye inaan qabiil cidna wax ku yeelo shakhsi wuxuu sameeyay shakhsi kale inaan ku xumayno waa wax naga xaaraansan way laakiin yeeli mayno kuwa la soo watay ee la rabo in wax lagu biiyo ee qabiil magacii lagu biiyo ee Soomaalinimada lagu biiyo ee xuduudyo nolol kala xiro waxa khasab ah oo aan laga maarmi karin u fiirsada halkaas Soomaali inuu isku timaado oo jubbooyinku isku yimaadaan oo ama Gado ama Xamar meesha nabada isku timaad oo ay ka tashadaan waan ugu baaqaynaa haddana waxaan leenahay hal la isku yimaado Gado aan isku tagno Xamar aan isku tagno meel kasta nabada aan isku tagno laakiin ma kuma jirto Kismaayo kuma jirto inta bahal ku godka ku jiro Kismaayo meel isku tagi kara ma meel sharci maahan meel la haysta weeye la isku tagi karo haddana waxaan u dhiibaa mudane Axmed Shire waxay weeyaan halyeeyga qaranka ayaynu salaameynay oo aynu oranaynay allaha ku aruuriyo adiga inta gobonimada kula wada ee dalka kaga soo tagtay ee mabdaa ku raacsan ee kartida ku raacsan waxaan ku sheegaynaa haruub ninkii la isloog yahay ninkii doona hasido dadka aad maqashay taariikhda reebay ee gobonimada reebay ee magacyada ku xardhan ee Soomaalida ah sidii noo kala loogu dhaganaa oo loo caayay oo loo riixay haddana ficnaantoodii meel walba ku xardhan tahay taariikhda ay xusid xilliga kan aanu caaw joogno waxa shaqeeya oo xiiso leh wax weey ninkii magac Soomaalinimo lagu soo dhaweeyay ee aan magac beelad lagu soo dhaweynin waxaan rabaa inaan ku sheego dadka kani
waxay ka kooban yihiin soomaalida idil waxa weeye cid qabiil laguguma soo dhaweyn oo reer laguguma soo dhaweyn waxa lagugu soo dhaweeyey adiga iyo inta kulama wadaay inay jiraan dad damiirkooda iyo dadnimadooda iyo soomaalinimadooda ay sugan yihiin sida ku xardhan meesha qalbigeennana way ugu xarran tahay waxaan rabaa marka xildhibaanka hal baan odhanayaa iyo xildhibaanada uu mas-uul ka yahay xildhibaanada Soomaaliya magaca way wadaagaan waa xildhibaano inay dad matalaanna way wadaagaan way xildhibaano laakiin saddex qaanadood bay ku kala jiraan waynu ogna qaanadaha ay ku kala jiraan waxa weeyaan qaanad qoys rag baa ku jira qaanad hungurin rag baa ku jira qaanad qaranna rag baa ku jira marka qaanada waxa ku jirta adiga raga Colombia midda qaran oo leeyoogya waxaan ku soo dhaweynaa caaqilka waayaraga Yusuf Macalin saad ula socotaan Axmed Madoobe 27 ayay u eg tahay madaxweynenimadii uu sheeganayay madaxweynenimadii waxay u eg tahay 27 wuxuu magacaabay baarlamaankii la kala diray mar kala tagina waa u shaqeeyaa si sharci darro ugu shaqeeyaa waxay magacaabeen guddi doorasho oo doorashada cusub dooranaya 15 ayaa doorasho ka dhacaysa waxaana shaki lahayn in maxamedow la soo celinayo shaki kuma jiro waa dara soo noqonayo waxa dooranayana waa baarlamaankii la kala diray Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan nin xaraar ma dhasho inuu xalaal ahayn hadii la og yahay madaxweynaha uu xalaal ahayn baarlamaanku xalaal ahayn dawladda Soomaaliya ma ictiraafaysa dawlad goboleed ma u ictiraafaysa mise waa maya waa iga su'aale waxaan rajaynayaa inaysan u ictiraafin dawlad goboleed dawlad goboleedka laga taliis laga bixiyo hadda ka bacdi laga soo dhis dawlad goboleed laga soo sameeyo jubada taas inay timaado waa qodob waxaa la socotaan in hadeertan uu yiri asaga oo magacaabay guddi oo maadaama la haystay oo liir qadara ka jirta oo dawladdu u tagtay dawladda asaga ay ku soo wada hadlay wasiirada dawladdu markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa dawladda fulinta wasiirada golaha wasiirada waxay ku soo ballameen in ay guddi magacaabaan golaha wasiiro ah Axmed Madoobe oo guddi soo magacaabo guddigu waa soo magacaabay oo soo dirsanaya la garay guddigaas asoo ka socdaaye dadka dhibanayaasha ayaa u hadlaya oo wasiirada u hadlaya afayeen waa su'aale yaa u hadlaya haddana waxaan u yeeraa Cornel Shire ku soo dhaw insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim akhyaarta waa idin salaamay dumarka walaalaha halkan caawa iskugu yimid waxaan ku faraxsanahay inaan caawa halkan noo fadhiyo xildhibaan Daahir Aamin Jeesow martina u ah reer Jubba uu u yahay xildhibaankiisa Soomaaliya dhan waxaan rabaa inaan aniga adkeeyo sida suldaanka uu sheegay xildhibaanka inaan adkeeyo ku adkeeyo waxyaalaha dhacayo baarlamaanka mooshin buu qaaday wuxuu kala diray baarlamaankii Jubbaland haddii ka la jibiyo sharciyada ma jirto sidoo u yiri waay waxaan u yeeraa insha Allah mudane Axmed Warsame Madoobe marna ma eedayo anigu waayo dhinaciga iga xiga maba gartaba waa nin yar oo la wadwada weey qolo kasto wadwadaba laakiin ma aysan ahayn Ethiopia ha wadwade dawladdu inay wadwada ma aysan ahayn Jeesow aawi dad badan ba amaanay oo amaan huwiyay inta caayisa inta laagta imisa laagta inta caayisa oo tuuriyeynaysa oo maagaysa aniga Jeesow caawa waa amaanaya laakiin maraan caayay baa jirtay anuu maraan caayay asaga baa jirtay caaw laakiin waan amaanaya goorma markii Jubbaland dhisayay caayay asaga Nairobi baan ka arkay asagoo jooga meeshii Jubbooyinka lagu dhisayay nimankii isbahaysiga Maxamed Cali Geedi iyo koox wato iyo nimankii markay meesha dhoomnaayeen Jeesowna waa joog waa ku jeeday kaamirada ayaa ay qabatay Jeesow marka laakiin Jeesow oo jooga markaa oo nimankaas ag taagan inkastoo hadalkiisii aan dareensanahay waxba igama fakadaan waan ogahay habeenka markuu hadlayay waxaan u daray maana noqon anigu Jeesow maana noqon wala ana noqon laakiin markii aan arkay waxaan isla waa isbahaysigii xoog lahaa laakiin markii uu hadlay xoogaa way gala dabacsanaaday markuu hadlayay
xogaa wuu ka dabacsanaaday wuxuu yidhi war dowladda waxaa loo hambeeyo dowladda waxaa loo hambeeyo yidhi markaasaan xoogaa waxaan is idhi wallahi ninkaas waxbaa ku jira waxaan u yeeraa caaqil dhagacaleen xoolihii soomaaliya waxaan ku soo baray inaan soomaaliya u adeegsana ma rabo sida ay qoladan sheeganaysa jubbaland shacabka soomaaliya ay u laynayaan ma doonayna inaan ku dayano laakiin waxaan ugu yeeraynaa soomaalinimada inay u soo noqdaan gogosha jubbooyinka looga tashanaya ayagoo soomaaliya inay fadhiistaan kuwa deegaanka ka ah jubbooyinka haddii imaan weydo hadda soomaali waa istaqaanaa nin degaan ah iyo nin taankii Ethiopia ama Kenya lagu keenay inaanay ku wada dagaalami doonin jubbooyinka xaqiiqo waa ogtiin kulligiin waxaan rabaa inaan halkaan salaan sharaf leh oo qiimiye qaayla aan ugu gudbiyo walaalkay jeeso ilaahay kula garab gal xilka aad qaaday xil weyn waa xil yar ma ahan ii sheegay jubbooyinkan waxa waaye ninkii iskale ayaa lahaanayo ka kaleeto ku meel gaar ku jooga waan ka tagaa insha Allah jubbooyinka ninkii u dhashay baa iska leh kan caanaha ka keenaya iska leh kan xaabada ka keenaya iska leh dhul markii la rabay in la fiiriyo waxaa laga fiiriyaa deegaanka markii waxaa ka keenaya xoog haday noqotaan hadda ciidanagama xoog badna nimanka xooggoonaya dhulkii way joogaan qabyaalada iyo qurunka iyo waxyaalaha ma aragto waxaan ka jecelnahay Soomaalinimada haddaan rag iyo dumar badnahay anoo ku hadlaya gabar Soomaaliyeed qiraaca oo halkaan keentay marka haddii ay arintuna sii xubaato waxaad ogaateen gabdhaha halka idinka jira ilaa gobolada dhexe rag baad nagu xisaabinaysiin gabdhaha rag baad nagu xisaabinaysiin dowladda xasan sheekh maxamuud uu ka yahay madaxweynaha ka yahay ra'iisul baarlamaanka kulli waxaan leenahay waanu idin jecelnahay waxaana u jeednaa inaad si xaq ah ku taagantiin wax walba dabada lagu dhigaa Soomaaliya dhaqaaqda hadda waxa international community mar hadda ka gado calanka dhulka yaala ya hadda ka horeeyay iyadoo calanka iyo magaceena ciida yaal wariyaa caan bixiyo yaa cirka u dhigay aqal xasan mooye bal yaa caawa lagu xusaa nasiibkaaga cudoon caawimada ilaah cadaan iyo madowba adiga ay ku caarifeen ee xasan oo aqli gaabiyo cadawgaagu kuma lagdaan casiis baan ku baryaynaa cudur ha arag geesi ku caraabi wadada cagta dhigtay wadada cagta waa la dhigay Soomaaliya way dhaqaaqda xamar wuu dhismay guul baan u rajaynaynaa ka waxaan leeyahay dawladani way shaqaysay dad yahow ogow wariyaan dadaalkii badnaa duur cidla la marin dan kale ruuxlihii wariyuu maanta idin la degin war haddii la durahayo ruuxii dantiina wada inaan dalku degin oo lagu diirsan soo ma aha damir laawu miyuu khayr badoonayaa war maxaa dulmigaad u jeedan dad uga hadlay maxaa dumarkiiyo duqowdii dabnaha ka xiray maxaa dan yartii caruurtii u dibad baxayn maxaad u difaaci weydeen dad yahow xaqi war maxaad u difaaci weydeen war dunidu tii maahan dulmiga la iska qaadan jiray waxaanay doonaynin dadku way ka dibad baxaan way iska diidaan wixii aan dantooda ahayn oo maanta dib u socod dhammaan loo durbaano tumo war Soomaali isku duubni weeyaan danteeda guud docayn iyo warxumo wayna daashadeen waryaan dariskiya walaalkii dadka isku xigay yaan la kala dilin oo umadeena la isku dirin qabiil loo duuban oo naar loo durbaano tuman war haddaad isdidaan bal idinkoo dad wada dhashaa oo aad dugsataan cadawgii dadku nabcaa wad ogtiin maanta cadawga la dugsanayo waraad dugsataan cadawgii dadku nabcaa idin dab kala qaado arrintaasi dawmiya damiirkii meeyay diinteeni fiicanayd duntii Soomaali umadii la daawan jiray dad yahow yaabnaya ma waan ruux danqada ka harin war haddii diricii kacaba looga dhago darfaha dadku ka dhashiya qabiil aad u daba gashaan daba marayn iyo haddaad mooshin daba dhigtaan damu jadiid weeye doodiinu taagan tahay war waa dayowdeenoo dumarkii raggiiba yaab waxaan dunidaba ka dhicin baad dabaalateen war waxaan dunidaba ka dhicin baad dabaalateen waxaan dunidaba ka dhicin baad dabaalateen waxaan dunidaba ka dhicin baad dabaalateen waana daciifteen oo cadow baad u degantiin haddana waxaan soo dhaweynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK Nadiifa Cali annagoo ah beelaha ka soo jeeda jubbooyinka aad iyo aad ayaan caaw u qiiraysanahay una faraxsanahay
boqorkiina matalayn intuu fadhiyaa xildhibaan jeesow shahaado aan kuugu talagalnay dowlad jacaylkaada iyo qaran jacaylkaada iyo midnimadaada iyo soomaali isukeenkaaga hadda waxaan leeyahay beesha shiiqaaleed hambalyo saan ayaa dadka jubbooyinka maalin walba aad isugu keentaan beelaha wada dega ee aan dagaalka jeclayn ee aan qoriga jeclayn ee soomaalinimada jecel aad baan ugu faraxsannahay inaan xildhibaankeenna haliyeygeeni Soomaaliyeed aan caaw halkan kula kulanno ayaa u dhiibay maxamed cali yaanyo gol iyo gabiib wixii iska lahaay meeshaas ma joogaan gol iyo gabiib waxa waaye meeshaas multicultural waay goboladaas arkaysiin jubbada hoose jubbada dhexe waa multicultural waay Soomaali oo dhan way ku dhan tahay Soomaali oo dhan way ku dhan tahay bulshada Soomaaliyeed ee degan dhulkaasi waa bulshada Soomaali oo idil qabiil ma laha annagu asalkeenu waxaan leeyahay reer Kismaayo reer Jamaame reer Jilib reer Afmadow ma lihin waxa la yiraahdo hebela kane ma lihin waxaan idin leeyahay marka magambo mashaqa miigo makalango takaunga ya anaa ku dhashay ceel mooga ceel geesguud ceel hele ii kurtuwar kamtiire anaa ku dhashay anaa ka imid mudane cabdullaahi daahir cali warwaradu meesha waa ka baxeen waxaa jooga waa un ninka la yidhahdo axmed madoobe iska bax in la yidhaahdo allah idinku duwo oo la yidhahdo haddayba xataa talabayaan iyaga ay talanayaan la keeno dad wax garada jeesow baarlamaankiina iyo dowladda Soomaaliya wax ma ka qaban kartaa maamulka Jubbaland oo arinta meesha ka jirta awoodaad wax ka u qabataan madaxweynihiin iyo baarlamaankiinu ma leedihiin taas waa mid ta kale awoodaad wax ka qabataan ma leedihiin in cadaafay dastuurku madad gooni u yaala su'aasha kale ay raacsan oo dastuurkan dowladda federaalka ee la sheegaya madad gooni iyo qabiil gooni u yaala mise waa wax Soomaali ku wada dhaqmayso hadduu dad gooni u yaalo waxaan idinkiyo madaxweynaha bay idinka codsanaynaa inaad dadka uu yaale siisaan oo farax ka qaadaan anoo u yeerahayaa gudoomiyaha jaaliyada Galmudug walaalkay Maxamed Ciise gudoomiye ku-xigeenka Nadiifa Cali Xareed afayeenka Salmaan Saciid hadiyad sharaf leh oo ay gudoonsiin doonaan hadiyadaas waxay tahay calaamadda lagu garto ninka aqoon-yahanka ninka culimaawidiinka ninka ugaaska ninka aqal jiifka oday dhaqameedka calaamadda lagu garto ay tahay iskulana sawiri doono